kusoo dhawow ardaaga filimada. Maanta waxaan ku tusi doonaa film action oo heer sare ah oo soo baxay sanadkii 1985 kaas oo ciwaankiisu ahaa Commando. Waa aroor hore xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada ayaa u dhex maraya baabuur qashin guri ah oo laba nin ay dhinacyada ka laalaadaan isagoo la yaaban gaari qashinkan xilliga hore yimid. Lawson oo ka tirsanaan jiray ciidamada Commandoska ayaa sarartiisa ka soo degay oo dibadda ula baxay qashinka. Markii uu gaariga soo gaaray ayaa labadii nin ee qashin qubka ahaa waxa ay daaha ka qaadeen cidda ay yihiin Cook iyo Diaz oo ahaa laba gacan ku dhiglayaal oo aad u tababaran kuwaas oo qoryahooda la soo baxay oo bilaabay inay toogtaan halkaasna ku dileen. Kadib Cook waxa uu joogaa meel baabuurta lagu iibiyo marka qof wax iibinaya oo lagu magacaabo Forrester oo hore u ahaan jiray military uu isku dayo inuu gaari ka iibiyo isaga, laakiin Cook wuxuu xaday gaarigii oo ku jiirsiiyey ninkii militariga ahaan jiray. Dhanka xeebta mid ka mid ah Commandostii hore oo magaciisa la yiraahdo Bennett ayaa galay doonidiisa. Waxa uu la socdaa in Cook iyo Diaz ay eegayaan. Markii ay doontu dhaqaaqday, Cook waxa uu soo saaray remote bomb isagoo qarxiyay markabka. Meel kale Cornel hore John Matrix oo ka tirsanaan jiray ciidamada Commandoska waxa uu ku guda jiraa hawl maalmeedkiisa. Waxa uuna goynayaa xaabo markay inantiisa Jenny ay isku daydo inay si qarsoodi ah uga naxiso. Marka aabaha iyo inantu ay bilaabaan inay quraacdaan, John waxa uu maqlay helicopter ku soo socda. General Franklin Kirby ayaa ka soo baxay helicopterka wuxuuna u sheegay Jackson iyo Harris oo ka tirsan ciidankiisa inay sugaan aagga. John iyo Kirby marka ay kulmaan ayaa Kirby ku wargeliyay inuu qafdinayo ciidamadii hore ee Commandoska ee ka tirsanaa cutubkii John. Jackson iyo Harris waxaa looga tegay inay ilaaliyaan John iyo gabadhiisa halka Kirby uu u baxayo si uu u baaro cidda ka dambaysa dililka. Marka uu General Kirby duulo, John waxa uu dareemay khatar wuxuuna qabtay inantiisa si uu uga ilaaliyo halista. Diaz ayaa ka soo muuqday duurka isagoo ridaya hubkiisa. Gacan ku dhiglayaasha ayaa dilay Harris isla markaasina dhaawacay Jackson. John wuxuu u sheegay Jenny inay ku dhuumato qolkeeda kahor inta uusan hubkiisa kala soo bixin qolka hubka uu yaallo. Marka uu ku soo laabto guriga wuxuu ogaaday in Jackson uu mar hore dhintay, Jennyna mar hore la qaatay. Diaz wuxuu u sheegay John in dadkiisu ay haystaan Jenny oo ay tahay in John la shaqeeyo isaga haddii uu doonayo in uu mar kale arko gabadhiisa, laakiin John kuma raacayo. Wuxuu dilay Diaz oo isla markiiba bilaabay inuu baacsado kooxdiisii. Waxa uu baabuurka ka riixayaa buurta dhinaceeda oo waxa uu adeegsanayaa karaarkiisa si uu u bilaabo baacsiga. Qorshahan uma shaqaynayo John oo waxa uu ku dambaynayaa in la qabto. Arrin lama filaan ah, Bennett oo ah ninkii loo maleynayay inuu ku dhintay qaraxa doonta ayaa isu sheegaya John inuu yahay mid ka mid ah cadowgiisa. Bennett waxa uu John u sheegay in waxaas oo dhami uu uga argoosanayo waqtigii John uu ka caydhiyay cutubkiisa. Dabadeed waxa uu ku toogtay John qalab suuxiye ah. Kadib John waxa uu ka soo toosay qol isagoo ku kateenadaysan miis oo ay ku hareeraysan yihiin kooxdii Bennett. Kadib waxa uu la kulmayaa Arias oo ah kaligii taliye Latin American ah oo la soo musaafiriyay kaas oo doonaya in John uu dilo madaxweynaha cusub ee Valverde oo ah wadan khiyaali ah si uu mar kale xukunka ula wareego. Arias waxa uu sheegay John in haddii uu diido uu jirdili doono oo uu dili doono gabadhiisa Jenny. Bennett iyo raggiisii ayaa John u sii kaxeeyay gegida dayuuradaha halkaas oo mid ka mid ah oo lagu magacaabo Sully uu halkaas u joogo si uu u hubiyo in Commandoska uu diyaaradda fuulo halka Enrique uu halkaas u joogo inuu diyaaradda la raaco John. Bennett waxa uu sheegay John in haddii mid ka mid ah raggiisa uu ku guuldaraysto inuu siiyo war cusub oo safarkiisa ku saabsan uu dili doono gabadhiisa Jenny. Markan John waxa uu muuqdaa inuu adeecsan yahay tilmaamaha Bennett oo diyaaradda tikidhkeeda ayuu la goosanayaa Enrique. Gudaha marka uu galo, John waxa uu weydiinayaa kalkaalisada duulimaadka inta uu qaadanayo duulimaadku. Waxa uu sheegtay inuu qaadan doono 11 saacadood. Markan John si aamusnaan ah ayuu Enrique u dilayaa oo ugu daboolaya koofiyad iyo buste si uu ugu ekaado inuu hurdo. Kadibna waxa uu ka soo boodaya diyaaraddu marka ay kor u kacdo wuxuuna saacadiisa ka dhigayaa 11 saacadood. Sully oo aan dareemin ka baxsashada John ee diyaaradda ayaa wacay Arias oo u sheegay in Commandoska uu adeeci doono amarkooda. John dabadeed haweeney magaceeda la yiraahdo Cindy ayuu baabuurkeeda raacay wuuna qabtay oo ku qanciyay inay ka daba kaxayso gaariga Sully. Waxay u raaceen goob dukaamaysi ah halkaas oo John u sharaxay xaaladiisa Cindy. Waxay u dhaqmaysaa sidii isaga ay rumaysatay, laakiin isla markii uu fasaxay waxay ku wargelisay waardiyihii suuqa oo ay ugu yeedhay inuu yahay afduubo waalan. Waardiyihii ayaa ku baaqay in kurmad loo fidiyo. Kooxdii ilaalada ahaydna waxay si degdeg ah uga hor yimaadeen John. Sully waxa uu ogaaday Cindy oo markii uu soo dhawaaday wuxuu arkay Commandoska oo la dagaalamaya ilaalada. Isla markiiba waxa uu ordayaa telefoon lacag bixin ah, laakiin John waxa uu ka joojiyay inuu waco Arias isaga oo soo fujiyay qolka telefoonka oo dhan. Ilaalada ammaanku waxay hareereeyeen John iyagoo u ogolaanaya Sully inuu baxsado, laakiin John waa uu la dagaalamaya halka Sully uu gaaray wiishka. Mid ka mid ah waardiyayaasha ayaa ku sigtay inuu toogto John. Cindy oo garatay qaladkeeda ayaa ka tuurtay jaranjaro. Waardiyihii
dhaawacmay ayaa ku amray inay istaagto, balse isla markiiba way carartay wayna baxsatay. John waxa uu Sally u eryaday goobta baabuurta la dhigto, cayrsigoodiina waxa uu isu bedelay cayrsi baabuur. Isagoo isticmaalaya baabuurka Cindy, waxa uu daba eryaday Sally wadada ka hor inta uusan u istaagin Cindy. iyada oo ka yaaban wax kasta oo dhacay, Cindy waxa ay weydiisay John su'aalo badan, isagoo si khatar ah ugu dhex wareegaya taraafikada, eryanayana Sally. baabuurtu waxay ka leexdeen wadada weyn, iyadoo Sally uu bilaabay inuu toogto John iyo Cindy, halka John uu isku dayayo inuu baabuurka Sally ku jiido gidaarka. eryashadu waxay ku dhammaanaysaa markii gaariga Sally uu gadoomo oo John iyo Cindy ay ku dhacaan tiir u dhow. Commandos-ku waxa uu u gudbay dhanka Sally oo waxa uu jeebkiisa kala soo baxay furihii qolka Sally ee motelka. kadib waxa uu ka laalaadinayaa meel qar sare ah. Sally ayaa isku dayaya inuu gorgortamo, isagoo u sheegay in John uu la kulansiin karo Cook-na uu og yahay halka ay Jenny joogto. laakiin markii uu arkay furaha motelka Sally, John waxa uu hore u garanayay halka uu Sally kula kulmay Cook, sidaas awgeed waxa uu ku ridayaa godka. John iyo Cindy kadib waxay ka haysteen baabuurkii Sally, waxayna aadeen motelkii. marka ay dekada soo gaadhaan, Arias iyo Bennett waxay u kaxaynayaan Jenny mid ka mid ah filooyinkii kaligii taliyaha ee ku taala jasiirad gaar ah. inanta qol ayay ku xidhayaan oo ka baxeen, isagoo si xawli ah ku dhex maraya taraafikada. John wuxuu tusay Cindy sawirka gabadhiisa Jenny, wuxuuna u sheegay inuu u baahan yahay inuu helo gabadhiisa ka hor inta aysan Arias iyo Bennett ogaanin inuusan tegin Valverde. waxay yimaadeen motelka oo ay soo galeen qolka. marka ay bilaabeen inay raadiyaan tilmaamo ku saabsan Jenny, Cook ayaa imaanaya oo garaacaya albaabka. John ayaa daaraya qubayska una diraya inay albaabka ka furto. albaabka ayay ka jawaabtay, Cookna wuu soo galay isagoo u malaynaya in uu Sally joogo. Commandos-ka ayaa weeraraya, waxaana labada nin ay bilaabayaan in ay dagaalamaan. Cook ayaa shaaca ka qaaday inuu hore uga tirsanaan jiray ciidamada khaaska ah, laakiin wax farqi ah tani John uma samayn. Commandos-ka ayaana dilay ka hor inta uusan dibadda u bixin si uu u baadho gaadhigiisa. Cindy waxay heshay risiid shidaal oo ciwaankeedu yahay geerash lagu hagaajiyo diyaaradaha gaarka ah, waxayna ka haysteen baabuurkii Cook oo ay yimaadeen geerashkii, kaas oo John u aqoonsaday meeshii uu ku soo toosay kadib markii Bennett uu ku toogtay qalabkii suuxiyaha ahaa. John waxa uu ka soo galay saqafka, waxauna ka war helay howlgal dhan oo askar fallaaga ah oo hub tahriibinayay. wuxuu galay qolka kantaroolka wuxuuna dilay mid ka mid ah fallaagada ka hor inta uusan daaqada u furin Cindy. waxay ogaadeen in Jenny lagu hayo jasiirad oo ay jirto diyaarad badda ah oo taal San Pedro, taas oo u isticmaali karaan si ay halkaas u gaadhaan. ka hor inta aysan tegin diyaaradda, John waxa uu go'aansaday inay u baahan yihiin inay soo tukaamaystaan marka hore. waxa ay jabsadeen bakhaar hub ah, iyagoo xadaya wax kasta sida qoryaha ilaa walxaha qarxa iyo xitaa gantaalaha ridada. Cindy waxay u qaadaysaa inta badan hubka baabuurka, laakiin John waa la xidhay ka hor inta aanu ku biirin. waxay daba gashay gaariga booliiska oo ku jiro John, waxayna isticmaashay gantaalka si ay u sii dayso John. isagoo jooga filada, Arias waxa uu weydiiyey Bennett inta ka harsan inta aysan diyaaradda John tegin Valverde iyo haddii ay tahay inay wax dhibaato ah ka fishaan Commandos-ka. Bennett ayaa u sheegay in diyaaraddu ay degi doonto wax ka yar 2 saacadood. John ma samayn doono wax uu halis ku gelinayo nafta gabadhiisa. markay tageen San Pedro, John iyo Cindy waxay xadeen diyaaraddii badda. Cindy waxay u duulisay diyaaraddii dhanka jasiiradda Arias joogay. filada dhexdeeda, Jenny waxay isku dayaysaa inay hesho hab ay uga baxsato qolka. Bennett wuxuu sharaxayaa in marka John dhammeeyo howlihiisa Valverde uu u iman doono si uu uga argoosto Arias. subaxii xigay, John iyo Cindy waxay yimaadeen jasiiradda, waxayna dejiyeen diyaaradda badda meel ka baxsan xeebaha jasiiradda. isla markaas diyaaraddii waxa ay timid Valverde. koofiyadii ku daboolneed wejiga Henriquez ayaa ka dhacday. John wuxuu faray Cindy inay raadiyo u dirto General Kirby, halka isagu uu soo dabaalinayo xeebta oo isu diyaarinayo dagaal. waxa uu sii socday dhanka filada, wuxuuna u kuurgalayaa ciidanka gaarka ah ee Arias. kadib waxa uu u dhigay tiro walxaha qarxa ah dhammaan saldhigyadii jabhadda ka hor inta uusan si aamusnaan ah u dilin dhowr askari. gegida diyaaradaha ee Valverde, nimankii Bennett waxa ay ku sugayeen John iyo Henriquez si ay uga soo baxaan diyaaradda, laakiin waxay arkeen meyd lagu soo qaaday bareelle, waxayna hubinayeen meydka, waxayna ogaadeen inuu yahay Henriquez. nimankii waxa ay waceen Arias oo u sheegeen in aanu John diyaaradda saarnayn. kaligii taliyihii xukunka u gaajaysnaa ayaa Bennett ku amray inuu dilo Jenny. markii Bennett uu u soo dhowaaday qolka Jenny, John wuxuu qarxiyey walxaha qarxa, dagaalkuna wuu bilaabmay. xoog ayuu qolka ku galay Bennett, wuxuuna ogaaday in Jenny ay baxsatay hadda. ninkan khiyaanada badanna waxa uu dabagalay inanta yar. John waxa uu sii waday inuu dilo ciidamo badan oo Arias leeyahay oo u socda filada. Cindy waxay ugu dambeyntii awood u yeelatay inay raadiyaha u gudbiso General Kirby. guud ahaanna waxaa lagu wargeliyey fariinteeda. intii uu dagaalka socday, waxa uu Commandos-ku gacanta ku dhigay qoriga M60, wuxuuna xasuuqay askar badan oo Arias leeyahay, taas oo u sahashay inuu gudaha u galo filada isagoo sita qorigiisa. Arias waxa uu ku biiray dagaalka ka hor inta aanu John
John toogan isagoo oo doonaya in uu dilo. Bennett waxa uu eryaday Jenny oo ka dabagalay qolka hoose, laakiin John ayaa soo qabtay waxaana ku careeyay in uu mindi kula dagaalamo. Waxa dhex maray dagaal adag, laakiin John waxa ugu dambeyntii ka adkaaday cadowgiisii. Kadib badbaadinta gabadhiisa, John waxa uu kula kulmay General Kirby xeebta, wuxuuna u soo bandhigay shaqadiisii hore ee Commandos-ka. John waxa uu eegayaa Cindy iyo gabadhiisa, wuxuuna go'aansanayaa in maalmihiisii dilaannimadu ay soo dhammaadeen. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Subscribe haddii aad jeceshahay inaad aragto muuqaalo badan oo sidan oo kale ah. Daar notification-ka oo noo dhaaf like si aad uga caawiso kanaalka inuu koro.